وزيرك وزارة قاشاندقة وزير كحجينك وزارة قاشاندقة حكومة فدرال الصومالية وزير كحجينك وزارة قاشاندقة طليانية تليها عيدا مضى وضا جيركا طليانية أمباسطوركا SRCC Acting Force Commanderka تليها EUTMka dhammaan hogaamada taliska guud bahda caafimaadka meediyaha salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii farxad weyn ayay inoo tahay maanta inaad halkaan nagala soo qayb gashaan furitaanka isbitaalkan oo aan ognahay runtii marxaladii kala duwan uu soo maray waxaan rabaa awalan inaan uga mahad celiyo guud ahaan shacabka iyo dawladda Talyaaniga fankan runtii isbitaalkan quruxda badan ee maanta halkaan laga xirag jaraayo oo aan isleeyahay caafimaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dabcan ma wada dabooli doonyo laakiin qayb kamida ayuu qayb uu ka qaada doonyo aan isleeyahay bixisay waxaan rabaa sidoo kale ayagana inaan u mahad celiyo mishinka oo soo maray runtii fankaanu sidoo kale waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo si gaar ah safiirka dawladda Talyaaniga oo aan isleeyahay runtii haddii aanay asiga ahaa lahayn hawshaanu meesha ay maanta soo gaarto Soomaaliya gaarteen waxaan rabaa sidoo kale shirkadihii qandaraaskan runtii qaatay oo ayagana si habsami leh oo aad u qiimo badan uga shaqeeyay arrintaanu maanta inay hirgasho meeshaana ay soo gaarto ayagana aad iyo aad u mahadsantiin waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahad celiyo safiirka oo runtii arrintan laantii aanay qabsoomi lahayn qayb aad iyo aad muhiim u ahayd oo aad weyn ka qaatay inay arrintan hirgasho oo isbitaalkan maanta la xirag jaraayo oo heerkan soo gaaro ama uu dhismaba sabab u noqday sidoo kale mishinka oo EUTMka oo ayagana runtii qayb weyn ku lahaa arrintan inay suurta gasho waxa kale rabaa inaan u mahad celiyo mishinka SRCC-ga iyo dhammaan admis headquarter-ka oo runtii ayagana arrintan qayb weyn ku lahaa waxaan rabaa fursadan maanta inaan uga faa'iideysto runtii mashruucan ama fankan waqtigii uu soo gaaray ama la soo dhaxmarsiiyay mishinkan waxaan isla xusiisanaa waxyaabihii markii hore loo qorsheeyay oo ay ahayd in lagu qabto iyo runtii inta ay gaarsiisnaayeen laakiin taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo safiirka iyo tiimka kale oo runtii ayagana arrintan gacanta ku hayay markii aan dib isula eegnay isla fiirina baahiyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigu ay u qabaan dhinaca caafimaadka waxay runtii aan isleeyahay wixii markii hore loo qorsheeyay wax ka muhiimsan ka fiican ka waxtar badan marka la yiraahdo dhinaca caafimaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka soo baxay ayaan dhihi karaa loogana faa'iideystay taas marka waxay ku tusinaysaa baahiyaha dawladahan saaxiibada nahay ama saaxiibada hadda maanta inta fadhiya ay nala garab istaagayaan ama ay rabaan inay ku caawiyaan hay'adaha amniga ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii sida ay muhiim u tahay baahiyaha marka hore in laga dhageysto cidda ay tahay in horta wax loo qabto in laga dhageysto taas ayaa gara karta meesha u daran iyo prioritiska runtii baahiyaha ay u kala leeyihiin waqtiga waa soo koobaynaa runtii aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa dhammaantiin ka soo qaybgalkiina iyo waqtiga qiimaha badan iyo runtii isbitaalkan maanta halkaan laga xirig furaayo qof walba oo halkaan fadhiya iyo inta ka maqanba qaybihi ay ku lahaayeen aad iyo aad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu